السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادة رفيق كلمة عشر كنا ما أنتوا حكساب سنة هاي إنجليا كيفي قابكي لو قدي كرا جمع رياضة مقعيدة هوسي ماذا إنجليا كيفي حالة وجوه الرئيس سدح صفة يا لو قدي جمع مقعيدة هوسي ماذا إنجليا كيفي تنوه الرئيس ومقع ليري حاليا ودوغو tan labaad waxa waa majinayna ansa ki katika hali ya umoja na v katika hali ya wingi magacyada ka bilowda ki markay hal yihiin v markay jamac yihiin ka bilowda tan saddexaadna waa majinayna ansa cha katika hali ya umoja na fia katika hali ya wingi magacyada markay hal yihiin cha ka bilowda marka ay jamac yihiin fia ka bilowda ay marka saddexda qaybood ay magacyada hoos yimaada Ingeliya kiifi u qaybsamaan qayb kastana waxaan u eegaynaa si gooni ah oo casharka ayaan ku falanqeyn doonaa magacyada ugu horeeya waa majina ya vitu vyote vilivyo hali ya udogo magacyada waxyaabaha kasta oo la yareey magaca laba sifa ayaa loo yareeyaa laba sabab waa in shay la yaasay la yareeya sidii hadda magac ugu horeeyay waa kijiji waxa waay waa tuula marka hadii meesha ay weyn tahay tuulada hadii ay weynaato waxa la yiraahdaa caasimad marka waxay noqonay jijidi waxa lagu dari ki maxay noqotay kijiji waa magac la yareey kijiji markii hal tahay waay markay badan tahayna vijiji kitoto qof la yareey cunug la yareey waaye vitoto iyo noqonaya jamiiciisa kijumba waa guri la yareeyay vichumba waa guriye badan oo la yareeyay jamace kijito wuxuu noqonaya kijitona waa webi la yareeyay ama ilyar biyo kasoo burqanayeen ayuu noqonaya webiga hadii la yareeyo vijito waa ilal yaryar oo biyo kasoo burqanayeen waa webiga oo la yareeyay magacyada labaad mfano katika sentensi marka magacyadii hadda aan soo marnay ee magacyo la yareey ahay wax ayaan tusaalooyin yar ka soo qaatay kijiji chenu ni gani tuuladiina waate kijiji chenu ni gani tuuladiina waate hadii ay badan yihiin jamac yihiin waxa la leeyahay vijiji vyenu ni gani tuulooyinkiina waa kuwe kijumba chake ni kizuri gurigiisa wuu wacan yahay ama wuu fiican yahay hadii jamac tahana vyumba vyake ni vizuri hadii ay jamac tahay vyumba vyake ni vizuri tani waa tusaalooyin aan ka soo qaatay sifada u horeysa waxaan yiri magacyada hoos yimaada Ingeliya kiifi saddex qayb ayaa looga dhigaa jamac qaybta u horeysa waa shay la yareey magac la yareey oo sababtii loo yareyn in la yeesay in la amaanay labadaba waa loo yareyn karaa tan labaad waxa waay magacyada ka bilowdaan cha markay hal yihiin markay jamac yihiin fiya ka bilowda sida shaashada inoo muuqato qaybta aan dashti gilay marka magaca ugu horeeyay waa chakula cunto waaye hadii jamac yahay wuxuu noqonayaa fiakula kan labaad waa choo waa musqul ama suuli hadii jamac yahay wuxuu noqonayaa vyo musqulo badan chama waa group ama koox isbiirsadeen oo wax isku darsadeen ama wada shaqeyn ka dhaxaysa hadii ay badan yihiin waxay noqonayaan fiama ama chombo waxa waay weel hadii ay badan yihiin waxay noqonayaan vyombo chakula vyakula choo vyo chama vyama chombo vyombo chakula cunto waay choo musqul chama waa urur chombona waxa waay weel hadii ay badan yihiin weelal ama maacun mfano katika sentensi tusaalooyinka aan ka soo qaadanay magacyada hadda waxa kamid chombo kinasafisha weelka waa la nadiifinaya ama waa la dhaqayaa chombo kinasafishwa hadii ay jamac yihiin maxalliyahay vyombo vinasafishwa weelasha waa la dhaqayaa ama waa la nadiifinaya chombo kinasafishwa weelka waa la dhaqayaa vyombo vinasafishwa weelasha waa la dhaqayaa ama waa la nadiifinaya labadaba ومعقول
magacyada saddexaad waa magacyada ki ka bilowdaan markay hal yihiin v-na ka bilowdaan marka ay jamaac yihiin. Majina yanayoanza katika hali ya umoja na v katika hali ya wingi. Magacyada ki bilowdaan ki marka hal yihiin kana bilowdaan v marka ay jamac yihiin. Magaca ugu horeys waa kijiko. Kijiko ama qaada wuxuu noqonayaa magaca sadii jamac laga dhigay vijiko. Kiongozi waa hogaamiya. Kiongozi hogaamiya. Viongozi waa hogaamiyayaal badan. Kisigino cirabta lugta qaybteeda hoose cirabta. Visigino waa cirbo. Kikombe way koob. Kikombe koob waaye jamac hadii laga dhigo wuxuu noqonayaa vikombe. Kijiko jamaceedu waa vijiko. Kiongozi jamaceedu waa viongozi. Kisigino jamaceedu waa visigino. Mfano katika sentensi, magacyada hadda aan soo marnay ee ki ka bilaabanay marka hal yihiin markay badan yihiin v ka bilaabanayeen ayaan ka soo qaadanay. Tusaalahan ka soo qaadanay waxa waaye kiti kimefunjika. Kiti kursiga wuu jabay. Kiti kimefunjika. Haddii ay badan yihiin jamac hadii laga dhigo kursiga wuxuu noqonayaa viti. Kiti wuxuu noqonayaa viti. Viti vimefunjika. Kimefunjikana way isbedelaysaa waxay noqonay vimefunjika. Kursiyadii way jabeen ama kursiyaashii way jabeen jamac markii laga dhigo. Intana zoezi andika kwa wingi. Zoezi waxa waaye waa ka jawaab su'aalooyinka. Andika kwa wingi. Su'aalooyinkan ay ka jawaabaysaa magacyadani waxay ku qoran yihiin waa hal. Marka waxaa la rabaa andika kwa wingi in aad jamac u bedesho. Wingi jamac waaye halna waa umoja. Majina sahi iko hali ya umoja. Majina iko hali ya umoja, unaandika hali ya wingi. Sasa magaca ugu horeeya waxa waaye kigombe, kijito, kan labaad kijiti, cheti, chama, kijiko, kitabu na viti. Magaca ugu horeeya waa kigombe, waa sac la yareeyay. Kijito webi la yareeyay. Mto way webiga hadii la yareeyay kijito. Kijiti waa geed la yareeyay. Mti way magaciisa saxda ah. Chetina waxa waaye waraqa ama shahaadooyin waaye cheti. Hadii la yareeyay ma la yareeyay asaga magaciisa waa iska caadi marka wuxuu noqonayaa jamac ayaa laga rabaa in hagaajiso. Chama waa urur. Kijikona waa kijiko caadi ah agan ku soo marnay. Kitabu book iyo viti kursiyaal. Jawaabtii waa tan. Magaca ugu horeeya wuxuu ahaay kigombe wuxuu noqonayaa vigombe. Kijito vijito. Kijiti wuxuu noqonayaa vijiti. Cheti vieti. Chama waxay noqonaysaa fiama. Vijiko kijiko waaye vijiko ay noqonayaan. Kitabu vitabu. Viti magacaas marka hore wuxuu ahaa jamac haddana wuxuu ahaanayaa sida hore viti. waxaa la iska rabay in loo qoro si jamac ereyadana ku di jamac ay ku wada qoran yihiin kuwii horena waxay ku qornaayeen umoja hal jamac ma ay ahayn hal ay ahaayeen. fadlan haddii aad kanaalka ku cusub tahay subscribe saar, share di, like saaxiibahana la wadaag.
casharadeenna dambe waxaanu ku eegi doonaa ngelia ya ayaan ku eegi doonaa. haddana cashirkeena maanta inta ayuu nooga egyahay. sidaa iyo nabadgelyo. fadlan ha ka iloobin inaad saartid subscribe, like oo aad la sii wadaagtid asxaabtaada, share as yiraahdid. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani. Subscribe please. Subscribe, sir.